Da'diisa uu saaray Axmed Madoobe ayaa 12 askari oo ka tirsan ciidamada Axmed Madoobe weliba ah ciidamada ugu dhow ee wixii ka soo goosteen ciidamadaas waxayna ku soo biireen ciidamada xoogga dalka ee ku sugan xuduud beenaadka gobolka Gedo. Ciidamada xoogga ayaa dhaqdhaqaaq xooggan ka wada xuduudka, iyadoona maleeshiya beeleedka Kenya ay ku urursan yihiin dhinaca Mandera. Afduubkii kadib ay u geysteen ciidamada Kenya oo dhaqameed halkaas ku sugan. Kadib ciidamada Kenya waxaa soo wajahday cabsi xooggan iyo kuwa halkaas ka baqay in ciidamada Soomaalida ay ku soo qaadaan dagaal. Taliya ka mid ah ciidamada xoogga ee ku sugan halkaas ayaa sheegay inay ka bixi doonaan jawaab degdeg ah, balse ay dowladda dhexe ka codsanayaan amar uga yimaada filla Soomaaliya oo halka dalka looga taliyo. Ciidamada xoogga ee ku sugan gobolka Gedo ayaa ah ciidamo aad u tayeysan uguna diyaarsan dagaal, waxayna naftooda mar walba u hibeeyaan inay dagaal la galaan maleeshiya beeleedka Kenya iyo kuwa Axmed Madoobe ku dhoodhooba. Shabakadda Rungood Media ayaa wareysi waxaa siiyay qaybo ka mid ah dadka halkaas ku dhaqan oo saaxiib la nahay, waxayna noo sheegeen in ciidamada Soomaalida ay mar walba dhaqdhaqaaq ka wadaan iyadoo dib maalin walba ciidan lagu sii biirinayo laga qaaday Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland markii ay Muqdisho ku kulmeen ayuu ka diiday in Jubbaland dalbaday in ciidamada gebi ahaanba laga soo saaro. Madaxweyne Farmaajo ayaa gaashaanka u daruuray oo sheegay ciidamadaas inay waajib ku joogaan inay ilaaliyaan xuduudka. Axmed Madoobe ayaa halkaas wajigabax kala kulmay ciidamada Soomaaliya ayaana ku sii siqaya dhammaan xuduudyada. Shabakadda Rungood Media mar walba waxaan halkan soo geli doonaa wixii halkaas aan ka helnay. Fadlan sabirgalaaska dhaqsaara, like saara, sii faafiya, lana gaarsiiya dhammaan asxaabteena sharafta leh. Waadna ku mahadsantihiin. Jimco wanaagsan asxaabteena.